moogtahay inuu kan yahay tartanka adduunka ugu la yaabka badan mana rumaysan doonti jiritaankiisa haddii aad aragtay dadyow ku tartamaya orod gawaadhi amba xitaa feer iyo legdan tartankani waa mid ka duwan dhammaan tartamadaas aan soo sheegnay oo dhan saaxiib tartankan waxaa loo yaqaanaa World Sleep Champion amba tartanka hurdada adduunka waa mid ka mid ah tartamada adduunka ugu yaabka badan ee aad weliga aragto guuleystaha tartankani wuxuu noqon doonaa qofka ugu hurdada badan amba caajislowga ah tartamayaashu waxay xidhanayaan qalabyo cabiro tayada hurdada ay seexanayaan sida saacado amba faraagiil waxaana loo eegaa inta ay seexdeen iyo sida jidhkoodu u nastay tartankani wuxuu socon doonaa 8 habeen 3 habeen hore waa tijaabo intaas kadibna waxaa bilaabmaya wareegyada halkaasoo laba qof oo kastaba isbarbar dhigi doono midka hurdada fiicanna uu noqon doono guuleystaha fikradda tartankan ayaa dhalatay intii lagu jiray COVID-19ka si loo dhiirigeliyo caafimaadka hurdada waxa ugu la yaabka badan ayaa ah saaxiib in qofka guuleystaha uu heli doono lacag dhan $10,000 Mareykanka waliba isagoo hurdo oo kaliya oon xitaa shaqayn soo la yaab maaha daawade haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo haddii aad tartankan ka qayb gasho kaalintii ayaad geli lahayd sima ku guuleysan lahayd lacagta sidoo kale haddii aad garanaysa saaxiib aad kuugu dhow kaasoo hurdada iyo isagu ay yihiin walaalo qaybta kommentiga hoose ku soo meeshagare oo ku dha tartankan waa tartankaagii ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhahdo